السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الهانتين با صاحب يال داود يال ملك استاذ دونك كشوكتان هالكني وسهن تي في waxaa daawanaysaa barnaamijka sahan go talanti oo habeenkii labaad uu idin ka imanayo magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco kaas oo ka qabsoomayo hoyga fanka iyo suugaanta ee Hadraawi Hall oo kamida hoolasha uu leeyahay hotelka Isha Burco ee magaalada Burco tartamayaashii iyo barnaamijkii xalay marka laga yimaado caawa waxa barnaamijka ku loolamaya isla markaasina iska hor imanaya qaar kamida barbaarta hibada u leh codka iyo waliba heesaha ee telefishinka ee ku nool magaalada Burco sidaas laajigeed tartamayaasha caawa waxay ka kooban yihiin 20 tartame kuwaas oo ku sugan hoolka uu ka dhacayo tartanka Sahan Got Talent barnaamijka qabsoomidiisa waxa si weyn uga qayb qaatay shakhsiyaad ama shirkado kala duwan oo qayb ka ahaa sidii barnaamijkan u qabsoomi lahaa isla markaasina maalgelin togan iyo mid tabanba ka geystay shirkadahaas barnaamijka ka qayb qaatay ee aanu mahad celinayna waxa kamid ah shirkadda Arday Kaab oo kamid ah shirkadaha soo saada fiisaha ama dalku galka wadamada Turkiga, Poland, China, Malaysia iyo wadamo badan oo dunida ah shirkadda Arday Kaab waxa ay samaysay qiimo dhimis boqolkiiba 40 boqolkiiba 30 boqolkiiba 20 taas oo ay yeelanayaan qaybaha kala duwan ee caafimaadka dalxiiska waxbarashada ee wadamada dalka Turkigu ka yahay ma u malaynaysaa daawade ama daawadaha ku sugan hoolka ay munaasabadu ka dhacayso inaad $1500 kaliya aad ku helayso waxbarasho ama fiisaha dalku galka dalka Turkiga Arday Kaab baa idin fududeynaysa waxayna kamid tahay shirkadaha sida weyn uga qayb qaadanaya barnaamijka Sahan Got Talent shirkadda Dalo Driving School haddii aad ku dhiban tahay wadista gaadiidka kala duwan Dalo Driving School ama dugsiga waxbarashada gaadiidku waxa uu idin fududeynaya sidii muddo yar oo kooban aad ku baran lahayd gaadiidka ama aad ku noqon lahayd darawal fasa taas oo idin fududeynayo inay idin baro calaamadaha ama waxyaabaha kala duwan ee looga baahan yahay darawalinta waxa kamid ah shirkadaha sida weyn uga qayb qaatay Burco VIP Decoration oo iyadu hoolkan noo hagaajisay isla markaasina intii barnaamijku qabanayayba na garab taagneed waa shirkad samaysa qurxinta qaabaynta hagaajinta iyo isku dubaridka xalfadaha arooska meherada iyo munaasabadaha kale ee kala duwan waxa qayb ka ah hoolka Isha Burco ama hotelka Isha Burco oo isagu ah mall waxyaabo badan lagu iibiyo isla markaasina kamid ah boolasha ugu waaweyn ee Burco ku yaala Dayaxjad shirkadda daabacadaha xayisiisada casriga ah ee Dayaxjad waxay kamid tahay shirkadaha sida weyn ee Burco ugu yaala ee sameeya daabacadaha kala duwan ama biritanada kala duwan shirkaddu barnaamijka waxay ka qaabishay guud ahaan wixii daabacada iyadoona sameysay siisay dhaqaale lagu contribution gareynayo guuleystayaasha Super Ice Cream malaha xalena waxaan idinku yiri naftiina qaraxa qaboojiya Super Ice Cream wuxuu kamid yahay ice creamada ama goobaha qaboojiyayaasha lagu iibiyo ee ku yaala Burco barnaamijka si weyn ayay iyaguna uga qayb qaateen waxaan leenahay wad mahadsantiin Burco Royal Gift in wax la isu hadiyeeyo waa naxariista ama bini'aadamada dadka dhexdooda taala jacaylkaaga waalidka iyo walaalkaaba haddii hadiye togan oo qurux badan aad doonayso waxa tagaysaa Burco Royal Gift wad mahadsantahay baan leenahay Muxyidiin Cabdikariin Cabdiraxmaan mulkiilaha meheradaas oo si weyn barnaamijka uga qayb qaatay kana mid ah meheradaha bixinaya abaalmarinada kala duwan ee habeen dambe halkan lagu qaadanayo jaamacadda Golis University malaha arday jaamacadda Golis dhigata halkan way fadhiyaan saas laajigeed waa goob aqooneed kamid ah goobaha aqoonta loogu tago ama jaamacadaha ama goobaha sare waxbarashada sare laga qaato ee ugu manfaca wanaagsan gobolkeena sidoo kale waxaan mahad celinaynaa maamulka sare ee jaamacadda Alfa Burco oo isaguna markii aan u tagnay Cabdiqani madaxweynaha jaamacaddaasi si weyn noo qaabilay isla markaasina barnaamijka dhiirigelin iyo taakulaynba garab naga siiyay waxaan u mahad celinaynaa Saacid Fashion Tailor dawarlaha Saacid oo si weyn barnaamijka isaguna qayb uga qaatay kana mid ahaa dhalinyarada gobolka Muxyidiin aad baan ugu mahad celinaynaa Dalo Driving School guud ahaan shirkadaha kala duwan ee barnaamijka ka qayb qaadanaya waxa kamid ah Wake Up Tourism haddii aad u baahan tahay inaad dalxiis ku aado gobolada kala duwan ee dalka haddii aad u baahan tahay inaad booqato buurta Daalo deegaanka Dayaxa gudmo Biicas Mayd iyo Xiis iyo deegaano kala duwan oo kamid tahay Sacaadadiin Ceel Sheekh buurta Gacan Libaax guud ahaan deegaanada loo dalxiis tago ee Somaliland ku yaala Wake Up Tourism ayaa idin geyn doonta sawir kura sawir taaga sawir dharra sawir lamaane mid qoys iyo mid gaaraba Crown HD waxay idin fududeynaysaa duubista iyo sidoo kale
hagaajinta xaafadihiina iyo hirgelinta ka qayb qaadashada farxadda qoyskiina iyo guud ahaan deegaankeenna. waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa Bahar Massage. qof kasta massage buu u baahan yahay daalniin kadib marka barnaamijka naga dhamaado aniguna Bahar waan tagayaa idinkuna inaad Bahar tagtaan ayaan rajaynayaa. intaas waa shirkadaha ka qayb qaatay oo mid kastaba aan nidhi mahad celin eray ugu filnaa. waxaan leenahay sida wanaagsan ee aad uga qayb qaadateen barnaamijka aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa. barnaamijku si rasmi ah ayuu inoogu bilaabmay. waxaan leenahay daawadayaal soo dhawaada. waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha telefishinka Sahan Mudane Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Hello iyo gudoomiyaha ama agaasimaha guud aan idhaahdo telefishinka Sahan Mudane Maxamuud Fantastic oo iyaguna barnaamijka qayb weyn ka ahaa sidii uu qabsoomi lahaa. farsamayaqaanada taagnida ku shaqeynaya saacadaha barnaamijku socdo iyagoo hadhowna u fariisanaya qurxinta iyo qaabaynta barnaamijka ee injineer daacad ka kooga yahay. waxaan leeyahay wad mahadsantihiin. haddii aad u baahataan biyo sharaab iyo shaahba wake up cafe ayaa hoolka ama hoteelka inoogu dhex taalla oo aad ka dalban kartaan. wad mahadsantihiin. waxaynu toos ugu gudagali doonaa haddii eebba nafta inoo daayo tartamayaasha aan u yeedhayo tartamaha koowaad ee dhinaca hibada codka luuqda oo aan u yeedhayo group A. waxaan u yeedhayaa Mubaarak Cismaan Maxamuud oo aan ku bilaabayo ama aan ku ibafurayo barnaamijka Sahan Got Talent 3 habeenkii labaad iyo hoolka Hadraawi ee magaalada Burco. soo dhaw Mubaarak, sacab baynu ku soo dhaweynaynaa. Mubaarak soo dhaw telefishinka Sahan iyo barnaamijka Sahan Got Talent. magacaaga saddexaad ku bilaabaysaa heestaad ku tartamayso ayaad sheegaysaa sidaas laajigeed soo dhaw. magacayga saddexaad Mubaarak Cismaan Maxamuud waxaan ku tartamayaa hees uu qaaday Maxamed Salmaan Tumaa adduunyada nin dhoofiyo. adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo nin dhargiyo nin dhowr qaday andheef hayn dedigiyo labadba hawli kama dhammaatee qof waliba wixii dhibay dhafoorkay ku taala ana dhaawacaygii jacayl dhidib kastaan la dheleeliyaayen amba kuguma dhaafeen hadday taadu dheelido maxaa dhacay dhankaagay u jiiftaa dhaliisheen ma dhiirado niman garab wax lagula dhisayne nafta dhool hilaaciyo dhibicbaa u muuqdee ana dhaawacaygii jacayl dhidib kastaan la dheldheeliyaayen jacaylkeedu dhuuxiyo lafa u dhaadhacaye dhulkoodoo dhur iyo ubax dhammaan ekeeyeen dhowristeeda qudhaayan dhowr ku qadaya weli dhammaan mid kula mida kama dhalan adduunkee. Mubaarak ha tegin waad mahadsan tahay. Mubaarak wuxuu ku luuqeeyey hees uu lahaa eebba naxariistii jannaha ka waraabiyey boqorkii codka fanaaniinta Soomaaliyeed Maxamed Salmaan Tumaa. saas laajigeed guddida sharafta leh ayaan ku wareejinayaa Maxamed iyo natiijadiisa. مبارك هو دلالي كلسوني وكسر قريب مسرحة لكن حق عدك وحنسيي لبا قام مسرحاتك وستاغي وكسر قريب وحنسيي إبر لبس كيسة وحنسيي إبر. محمد سودو مبارك محمد آدو مهدسن يهي وددالي وقت بدن بو inuu soo bixiyeen oo halkan yimaado tartamo. Mubaarak waa dadaalaysa
harrajo dhigin kalsoonida anigu waxaan siiyey 3 laakiin qaab maslaxiyeedka waxaan siiyey eber laxamkii heestana wuu ka baxayba halkaana waxaan siiyey eber waad mahadsantahay ما شاء الله موارق هرتا سيدو runtii aad buu cod macaan yahay qaad masraxeedkiisa horta ma xuma laakiin mid baan kula talinayaa muwaariq heesta codkeeda wuu hayaa toonkeediina wuu ka baxay laakiin se waxaan u sheegayaa kolley qofku hadduu dadaalo u gaari doonaa dadaalo u gaadhay baa layidhi horaan lee u sii soco muwaariq waxaan ku siiyey anugu 3 dhibcood baan ku siiyey muwaariq aad iyo aad bad mahadsantay saaxiib waxaan rajaynayaa barnaamijyada kale ee telefishinka qaban doona iyo kuwa kale ee hibooyinka lagu soo bandhigi doonana inaad qayb ka noqon doonto laga yaabaa inaad gruubkaaga ee kaalinta koowaad gasho ee hawarwarin waxaan u yeelayaa gruub ee qofka labaad ee tartamaya oo aan leeyahay soo dhowow cabdiraxmaan cali abakor kusoo dhowow masraxa telefishinka saan marka hore way salaamayeen bulshooyinta meesha isugu timi marka xiga waxaan salaamayaa gudida sharafta leh go'aamin doonta kala saarina doonta tartamayaasha meesha isugu yimi waxaan kaloo salaamayaa daadiyaasha barnaamijka Sahan TV magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Abukar waxaan ku tartamayaa Allah u naxariistay suuqaado Cabdi Taaliil markuu jiira dhaabu jirifkeed ku yeeshaa jiridii laxaadina jabi waymayse jirkiyo tartaaban jeegada wala jalki qaadan waa sida kugu jeele jiroy haleshe naftuku jeclaatiyo sidadiiga jeeda isku jaad bamaaheen jaleecada xaggaagay indhihii jiraano adiga ijiito jardheeriga laaceen jirkiyo tartaaban jeegada wala jalki qaadan waa sida kugu jeele jiroy haleshe naftuku ومحسن yahay walaalkeen Cabdiraxmaan Cali Abakar horta Cabdiraxmaan mar labaad loo saabiyo Cabdiraxmaan horta adigu nin dheer baad tahay sida runtiina fanku wuxuu ku soo baxaa nin dheer sida adigu kale ma sha Allah oo dadaalisa codkaaga aad u fiican yahay waxoogaa laakiin inaad luunta ka haystaan doonaya laakiin calooshaad ka haystaan halkaa waxaan ku siiyey Cabdiraxmaan 5 dhibcood baan ku siiyey way 5 dhibcood baa Cabdiraxmaan saa ku haystaa haye Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay uu dadaalayaa si wanaagsan oo kalsooniyo buu soo taagay balse waxaad yara moodaa inuu laxamkii haysta duway anigu waxaan ku siiyey 5 baan anigu siiyey tobanbuu sida ku haystaa Cabdiraxmaan kalsoonida uu masraxa ku taagnaa uu ka heesayay waxaan siiyey 5 teembada waxaan siiyey eber codka waxaan siiyey 5 sidaas buu ku haystaa 10 dhibcood Cabdiraxmaan masraxa waxa uu kala degayaa tiradii ugu badnayd ee group ee ay kala degto oo 20 dhibcood waxaan u yeelayaa inanta keliya ee ku jirta gruubka ee waxaan u yeelayaa Sakhiya Cabdirashiid Axmed saac soo dhaweeyay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هره وحن كسلام يا سلامة إسلامك. مرلباتك وحن halkan ka mahadinayaa dhammaan daadiyaasha barnaamijka dhamaantiin waa mahadsantiin anigu markii hore waxaan ugu talagalay inaan kaga qayb qaato madashan hees hindiya markaas waxa la yiri heesta hindiga ma soconayso sakhiya waxay gudida weydiinaysaa inay hees hindiya ku tartami karto sakhiya cabdirashiid baa magaceeda la yidhaahdaa u jawaaba hees hindiya miyay ku tartami kartaa haa iyo maya hees hindiya kuma tartami karto leanno heesda laxankeedii iyo codkiisana ma garanaysaan hees Soomaaliya ku tartan okay heestu waxay ku ruwa hees caana oo teeri meeri baa la yidhaahdaa وياي هيستا كتر تبالغ तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल तो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए एक लड़के की लिए कहानी है नहीं तो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल तो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए एहसासों में तू है हरी याद में तेरा अफसाना तो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल तो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए هيستا أي سخية قادي وقصنا وقيرون هذه حتى يستاهل يعني فاهم يستاهل سخية مركنا كان السنة عاوز في عمل أساسي عدك بالهاس الصومالية أنت كجرانيسا هاس سلطان سهران قادر أين يرك جرني ملك حبنا هيا كم إذا كنت بايا مغنى ذاتي بيسا ملك حبنا هيا كم إذا كنت بايا مغنى ذاتي بيسا إيجتا متدير مالمان صعدك علي معك علي كسمو قتيبا وأنا هذا دالي ربنا لو هبنا بمشي شوغا ساعة نوية وحن سخية عبد الرشيد دقيقة دولا نتيجة سخية يكون شيء يستهين هاي يتي Soomaaliga hay'adda Suudaan Sare qaado soo dhawaada gudida aad baan isoo dhaweynayaa waan hambalyeeynaya sida quruxda badan ee kalsoonida leh ee fiican ay u qaaday heesta sakhiyo waxaan leeyahay anigu xaggayga toban siinaya waayo sida nool ay codku noo soo gaarsiisay codkeeda quruxda badan markaan intaaba qiimeeyaan u toban ku siiyay
يلي أنا وسكري وحمل إسلام عاو هندي أبدا حجوكتابي لا طابع عاو كويس أبو إسلام أورتا سكية صدر أنتي ما شاء الله وعد قروح بضنتهاي وأنا قف ديرن لكن waxaan ku sii dhiirigelinayaa sakiya anagu inay heesaha Soomaaliga xafito sooruntii intii imika hindiga xafidaysayna Soomaali xafitaabeed marka waxaan siinayaa sakiya waxaan siinayaa anigu 8 dhibcood baan siinayaa 8 haye ما شاء الله صفية waxaan u hayaa aniguna 10 baan u hayaa dhibcood sakiya waa darajada group ee qofka ugu sareeya 8 dhibcood bay haysataa sakiya waxaan leenahay habeen dambe heesta qaadi doonto turjumaankeeda ku weydiin doonaa aad iyo aad baan ku salaamaya sakiya habeen wanaagsan sakiya groupkeeda waxaa hore u tartamay mubaarak cismaan maxamuud iyo cabdiraxmaan cali abakor hadda waxaan u yeerayaa tartamaha ugu dambeeya group A Saciid Maxamed Cabdi oo aan leeyahay ama Sakhiya iyo Cabdiraxmaan baabahaya ama Saciid iyo Sakhiya ayaa baxaya Saciid soo dhaw ودوي magacaygu Saciid Maxamed Cabdi waxaan ku tartamayaa heestii shay miro daca bishaaradii nafteeda bishaaradii naftayday burta waxaan ku soo marayay batalaalihii budhari kuwaasna ilaa buurti daalo buraan iyo hadaftimo cerigaba iyo badhan baladadii kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balyaduna buuxaan soo booqday awga sidaan ahay bukaan socod markii baanta laysyidhi bilanay laanta libaxnaani kariwa bini aadan baa tahay bashar kula midaan ahay way bini aadan baa tahay bashar kula midaan ahay nafku baahan baane barbaartaada ila qabo barbaartaada ila qabo Saciid wuxuu yidhi binaadan baa tahay waayahay waxaan soo dhaweynayaa maxamed qurax Saciid hadda waxaan siiyay afar waayahay eeshi kale waxaan siiyay afar 8 dhibcood ayuu warkeen Saciid Maxamed Cabdi aad buu mahadsan yahay si dhiiraniye buu qaaday laakiin laxamkii heest wuu ka bayr waayahay heesu hees aad macaan oo laxam wanaagsan laxamkeedu gudugay waxaan siiyay anigu halkaas 3 baan siinayaa waayahay laxanka qaab maslixiyadkiisana waxaan siinayaa 4 waayahay ما شاء الله سعيد aad buu cun macaan yahay laakiin xoogaa heestiibu naaxiyadii ka yara leexiyay anigu Saciid waxaan siinayaa isku duuduub 7 dhibcood baan siinayaa 7 dhibcood Saciid waxa uu haystaa 22 dhibcood soo maaha halkan waxaan mar kale uga yeerayaa Saciid iyo Cabdiraxmaan iyo Saciid Cabdiraxmaan iyo Saciid waxaan ogaanaynaa midka Sakhiya sii raacaya habeen dambe tagaya kiinaba horeysiya way imika waxa ku tartamaya heesu qaado Allah u naxariistay maxaa Salebaan Tubaac isku hashay sidii aan kuntaday kucla roray
godobteeni qabaa garan waaye aniguna garaadkayga gaabsan waaye adna garashadaadii igaraad weyde dhibtaan galayana igargaari mayside gudurkan habeenkii dhaxantay goora awaada godob inkastuu ningeesii rabugeed adeeg yahay hadda garabka lala qaban goryoodi maaye gacma maranilama gudkood halsaare sida gay abaare عرقوني داقا أواقع قلوبي أي وياي سعيد سلو دبا waxaa ku tartamayaa shay miro daca muxuu nabarka caash muxuu nabar ka caashaqu igeyste naafadanayahoy oo nudubtahoyo naxariista biyo ifkalgacal dadkaygii jawigaalanogegeyne oo nabada dhexdeena nawawirayaynayay niyad shabay cadaawaha markaad ii nuglaysayo ifka tobanka nooco nafsi baadeege waxa nabad lagu daba nabur lama filaaniyo naxdin dariis ma noqotee nasiibka ma kulanteen anna ma iska noolahay inan tahay waayahay annama iska noolahaynan tahay guddiga sharafta ah ayaynu ku wareejinayna labadaas Saciid iyo Cabdiraxmaan iyaynu habeen dambe geynaa soo dhawaada labada inan ee dhallinyaradayba si dhiiran oo qurux badan bay stage-ka u yimaadeen oo ugu heeseen waxa weeyaan anigu Cabdiraxmaan 5 baan u hayaa waayahay ninka la yiraahdo Saciid isaga 4 baan u hayaa waayahay wanaagsan Cabdirasaaq horta Saciid iyo marka la Cabdiraxmaan horta laba noo kala dhacaya maaha runtiya laakiin Saciid anigu waxaan u hayaa 3 dhibcood baan u hayaa waayahay Cabdiraxmaan waxaan u hayaa 6 dhibcood waayahay Saciid waxaan u hayaa 3 dhibcood waayahay Cabdiraxmaan waxaan u hayaa 5 dhibcood gudahaan Cabdiraxmaan oo markii hore la sheegay in dherarkiisu fanka u baahan yahay in ninka dherarkiisa fanka u baahan yahay ayaa cawayska habeen dambana qayb ka noqon doona insha Allah taala saas laajigeed group A waxa soo baxay Cabdiraxmaan iyo Safiya Sacbeelay tartanku caawa malaha xalay uu ka adag yahay caawa adag yahay kii xalay baa malaha fududaa groupkii A baynu ka gudbiyeyno kala saar weynay group B waxaan u yeelay Xamse Faarax Xasan oo la yahay kusoo dhow Masrax Xamse wardaway walaal sikriye magacaygu waa Xamse Faarax Xasan waxaan ku tartamayaa hees oo qaado nimcaan hilaac arunduu badan caawa dad waa arunduu dilin waan noo bilaabayay
wareegto dhigano wuxuu waaxidi ku qoray sida laguma waaye walbahaarka caashaqa dhalashaaka weyno wadnayaal isjecel baa isweydaarta noloshee hadduu wada jirkii lumay wakhtigiyo dharaaruhu kala weecadkeene wiilku calafku dabaday wehelkaaga dhigay runaa weligaa la noolo darumaada kala helaa inkastoo ku waayo ku waayay hankayguna samir qaado waa horeeye wajigii furnaa iyo weedhaha xusuusta leye weedhaha xusuusta le wali laabta kama bixin hadduu wada jirkii lumay wakhtigiyo dharaaruhu kala weecadkeene wiilku calafku dabaday wiilkaaga dhiga runaa weligaa noolow wadarumaada kala helaa warheede cabdiraxmaan biyalaan baa lagu liqicaa waaye guddiga sharafta leh ما شاء الله عبد الرحمن ونلعب معاه سيده runtiya كلي استيلكيسنا محما aad buu fiican yahay عبد الرحمن كلي in badan baa soo dadaalaysa u maleynaya inanka xamse faarax baan leeyahay in badan baa soo dadaalaysay dadaalkaagana sida runtii caawalkan aad kusoo bandhigtay oo muujisay anugu عبد الرحمن waxaan u ahay xamse waxaan u ahay shan xagga masraxeedka iyo shan codka tobankaas oo hayo xamse waa nin dhallinyaro ah oo habka uu isteelkiisa u soo qurxiyey ee aad u fiican tahay waa nin u soo diyaargaroobay fan inuu soo jiito fankuna wuxuu leeyahay attraction codka quruxda badan oo uu ku luuqaynaya heesta wuxuu aniga iga hayaa shan buu iga hayaa shanta kalena waxaan u qaybiyey deganaanta iyo hab maslaxiyaadka kale tobankiiba waanu dhammaystay xamse faarax sidaa ay guddida iga horreysay sheegtay ayaan ku raacsanahay anuguna saasuu soddonkii dhibcoodda xamse waxaan leeyahay toban anigaana ku darso toban anigaa maadaama hees qurux badanaad qaaday toban anigaana ku darso toban dadweynaha ku darso waxaan u yeelayaa tartamaha xiga ee group B waxaan u yeelayaa Sakariye Maxamed Cali oo leeyahay soo dhow Sakariye nin hal abuur u ahaa tartankii barnaamijka Haniya Himilo maanso ayuu kaga qayb galay loola jiray kaltuunay habar kugu dhac isaas laajkeed caawa heesta ayay dhegeysan doonaa soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي بادي السلام يا دمان تاجرياشا كلي لاب بعد كل سلام يعني كنا كسلام بعد السلام كدي أرتا عنو كل أرتا عنو كمجرين كل عنو كمجرين حالة هورة لكن عاوة يسكتيا إنك استوى عنو بدي حاجة halabuurkaas ku fiicnay laakiin waxa la yiri waxaad arkaysa lagama hadheen ya marka anigu balwan isku dayay arta sayla gaadho heesta waxa qaaday maxamed mooge waa hees dhowr tuduc baan ka hayaa maxay dantu ciishay wiilo dulqaadiyo deeq lahaayo dadkuna dooqon moodaya
maxaa cad geel halaabo dib jiray uu cunay dogaago ninkii lahaa daydaya maxaa cad geel halaabo dib jiray uu cunay dogaago ninkii lahaa daydaya waqtigu waystaba socdaa adigu deegana abaar waqtigu waystaba socdaa adigu deegana abaar marbuu dirir ku da'ayo daruuruhu curtaano xareedku dabaalataa marbuu dirir ku da'ayo daruuruhu curtaano xareedku dabaalataa ninkaas keliya waxaa abuuro erayguu garanayay xareed ku dabaalataa si weyn buu jiray guddida ku wareejinaya sakariye maxamed wuu inoo sheego wuxuu yidhi horta anna waan isku dayayaa caawa anigu sakariye naaxiyaddii heesta wuu ka baxayba wuu wanaagsan yahay waa nin hal-abuura wuuna aad u fiican yahay habeenkii hore han iyo himlana waan daawanayay laakiin heestan sakariyow xataa inaad si yaro fiican usoo xifdiday ahayd naaxiyaddeedii waad khaladay oo midhan baad ka dhigtay dhaliilna kuma lihid oo bini aadan baanu nahay wixii khalada waanu khaldaynaa 3 baan kugu siiyey anigu waayahay kalsoonidaada daraaddeed baan 3 kugu siiyey waayahay 3 waa ma qoysta cabdisaqalta kolley sakariye wan siduu inoo sheegay hal-abuurka laftarkiisa marmar dee wuu heesi karaa waanu khaldi karaa heesta inkastoo imika heestan laftarkeeda naaxiyaddeedii uu ka baxay laakiin sidoo runtii waanu dadaalay dadaalkiisii baan halkaas ku soo gaadhay anugu sakariye waxaan u hayaa 4 dhibcood baan siinayaa maadaama uu yahay nin hal-abuura dhibic baan ugu dara halka 4 dhibcood baan siinayaa 7 dhibcood sakariye waxaan leeyahay anigu horta marka hore u mahadsan yahay maadaama kalsooni iyo ku yimi masraxa waxaan leeyahay sakariye hal-abuurkaaga ku ekow waxaan kuu hayaa qaab masraxa u soo gashay waxaan kuu hayaa eber codka waxaan kuu hayaa eber qaab labiskaaga waxaan kuu hayaa eber najayna min annaar sakariye waa nin hal-abuura gabayga uu tartankii hore kaga qayb galay wuxuu sheegay inay qiso dhab ahayd oo inan hooyadeeda dhibtay ahayd oo moobeel ku dhibtay markii dambena moobeelkii fawaaxishu horseeday saas laajigee dareenka inantaa iyo hooyadaa dhex yaallay ayuu ka sameeyey maansadii ahayd kaltuuna iyo habaar kugu dhac intaas ayaynu ku imanayna hal-abuurka maansada sakariye oo tartamayaashan ka mid ahaa waxaan u gudbayaa tartamaha xiga mustafe jaamac cadan oo aan leeyahay ku soo dhawow masraxa بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u salaamayaa khayrta sharafta badan caawa halkan isugu timi waxaan soo kala salaamayaa guddida barnaamijka iyo dhammaan bahda Sahan TV waxaan ku tartamayaa anigu magacaygu waa Mustafa Jaacadan waxaan ku tartamayaa heestii uu qaaday fanaanka Allah u naxariistay Umar Nuur Cabdulle ee ahayd dusha timaha guudkee dusha timaha guudkee dib u dhaaf yaa dhaxdiyo dibna hadalka qadamada ilka dabar caskaga yaal dib markaan u fiirsado fanax yaraada mutee idishaye cambariyaha isla gaadhay dacallada dagaalabada garabiyo waxyaha dushooda dandhaqaaqa laafyaha dadyawanigu yaabaye madadkii kitaabkiyo diinteenu sheegtee degaana fardowso soo daahiraha doqontii nasiib leh damacka galaba degal waab la saaraa
daymada jaleecada markii aan ku daawado indhuhu meelay diidaan daynkuma yeeline daruur yahay adoo kale nebi yuusuf dabaadii lama keenin dunide nasiibku haygu ka daro lama keenin dunide nasiibku haygu ka daro madadkii kitaabkiyo diinteenu keentee degaana firdowso soo daahira dawliilka dhararkee daray baxay la moodiyo degaanaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka damqashada kalgacalka leh daday tahay wax garashada dar ilaahay siday tahay intaa timaha haddaba tiyo dumar gebi ahaantii intaa timaha haddaba tiyo dumar gebi ahaantii dhan loo dayaabayna yahay qurux kulama doonanid dhan loo dayaabayna yahay qurux kulama doonanid madadkii kitaabkiyo diinteenu sheegtee degaana firdowso soo daahira madadkii kitaabkiyo diinteenu sheegtee degaana firdowso soo daahiraba waayahay waa mahadsan yahay tartame mustafa jaamac aadan natiijadiisa ayaan guddida u weydiinaynaa telefishinka caalamiga ah ee Sahan TV waxa uu mar walba idiin qabanaya barnaamijyo ku saabsan madadaalo iyo dhiirigelinta dhalinyarada mustafa jaamac aadan sida runtii anigu waxaan siinayaa 3 dhibcood la siinayaa waayahay 3 dhibcood mustafa wuu soo dadaalay waqti badanna uu soo bixiyey laakiin waxaad moodaa inuu teembadii heesta iyo qaabkeedu yara bedelay aniguna 3 lamadoon baan haya waayahay lixdu haystaa mustafa aad buu mahadsan yahay iyana baqdida ku yara jirta heestana waxoogaan moodaa inuu ka yara si ay siiqadii ahayd dusha timaha gudkee dib u dhaafaya dhaxdiiyo dibna hadalka qalma ilka dabar caskagaya waxaan ku hayaa 2 dhibcood aad u mahadsantahay guud ahaan 8 dhibcood ayuu kala duwanaa lafiya dadyawanigu yaabay madadkii kitaabkii diinteenu sheeg xaabadaas siiqadaas laakiin siiqadii uu ka yara baxay aan ka soo gudubno guddida min fadlan aamusnaana aynu ku darno cabdishakuur axmed cilmi tartamaha ugu dambeeya ee group B ayaanu yeelayaa soo dhowo heer sare بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين عاد يا بردي السلام يا waxaan ku tartamayaa hees uu qaado Muuse Ismaaciil Qalile magacayguna waa Cabdishakuur Axmed Tawsiyo warorti yaada dogsanayo meel roodibna dhigay bartu digil madowtay ada daawanayo kaliga dakeye Tawsiyo warorti ada dogsanayo Tawsiyo warorti ada dogsanayo meel roodibna dhigay bartu digil madowta ada daawanayo kaliga dakeye intaada duushiyo shibiraha la dheeristay cashaqigu daleelsaday warqadan ku daabacay doodeedaniga tiqa waxaad tidhaahdaa wiilkii dayowyo ma xasuusta dunide waadi darada daqarkii sanca shaqa
waxaanu la doogtay marun soo calooldabax tawsyahow aroortii deeqdii ilaahay ada dooranayo ciidi daaradku hay hees wuxuu qaaday mucdeeda leh oo erayadeeda leh oo miisaankeeda leh hase yeeshee guddida sharafta leh ayaa ku wareejinaya natiijada cabdishakuur heer sare waxay tahay soo dhawaada cabdishakuur waxaan u hayaa anigu 2 dhibcood cabdishakuur labadeedu baan u hayaa anuu hal baan ugu daro 3 baan siinaya cabdishakuur shaqada sacab ayuu leeyahay group B waxaa inoo soo baxay xamse faarax xasan iyo mustafe jaamac aadan oo aan leeyahay wayno habeen dambe cafwan aan natiijada hubiyo natiijadu sidaasi ayay sax ku tahay habeen dambe waxaa mar kale masraxa imanaya mustafe iyo xamse sacab bay mudayin waxaan u yeerayaa group C waxaan u yeerayaa tartamaha koowaad najax siciid cabdi oo leeyahay soo dhow masraxa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضبط دي السلام دمانتين كسو قيب قلياش برامج كنات كوروح بضلة سلو كروحان آدو سلام يا جنا كرسورياش برامج كروس لأنتو برامج كحسياشين لأنتو نيسان صباحين dad kan talentiga iyo hibooyinka gaarka leh intaas ka bacdi caaw xabeebba igu xiran oo tabcaan baarahay oo la igu dhex baqtiyay marka ila saa'ira bal dadkiina daawanayo garsoorayaasha ma aha imka faarta ay ku soo qabinay ilaahay ka boqo ila saa'ira intaas ka bacdi waxa soo gudbinay marka hore waxa ku soo tala galay heesaan sida caawinimada saadhaka uga bax laakiin waan ka walaacay oo codkaygii heestii bas qaban waayay marka waan idin yara amaanayaa bal idinkuna aamusa hablo idinkuna dhageysta inta inamada ay jeclaan meesha ku jiraan oo heestada dhuqaato dayal haw malaynine dayihi ku halacsadaan kadehanayne dayal haw malaynine ku halacsadaan kadehanayne dhamman waxyahaygiyo inta dhiiga qaadiha dhamman waxyahaygiyo inta dhiiga qaadiha adiga dhex jiife dhabtii waxaa tahay dhabtii waxaa tahay dhigta udurka haysiyo dhismahayga nolosheeye qawlkaagan dhilani isu dheeli tiranba dhuuxayga raaci qawlkaagan dhilani isu dheeli tiranba dhuuxayga raaci dhaqdhaqaaqa wadnahana adiga ku dhiganuha dhaqdhaqaaqa wadnahana adiga ku dhiganuha igu dheehan anige heesindii waydi qaadaan najax best cod aad u qurux badan bay maslaxay la timi labiskeeda stagekeeda qaab maslaxiyadeedkeeda waxeeda uu iga dhan 10 waan hayaa anigu najax siciid cabdi ma sha Allah kulli waana gabadh kaftan badan fankuna kama maarmo qof kaftan badan ma garata waxaa kaloo kuu dheer hidiyo dhaqankiina waseetaa iyo cunaabigii horta anigu najax waxaan siiyaan u hayaa 10 dhibcood ma hayo
سكرية ونجح ويقدمتي نجح نجح أساسا يقدمتي وحن شعرها إنه الساعة بكسر وينو أبوان محمد حسن جامع نجلس الله اسمه صوته أبوان نجلس سكارة أيها السلام عليكم